bishan fooda inugu soo haysa oo bisha dilxija ah ayaa mudnaan khaas leh وحديث بخاري صار من حديث عبد الله بن عباس أي النبي وحليه صلى الله عليه وآله وسلم مجران مالمو عمل ونكسر الله سمايا ألا وكتش عليه طبعا كابري عماش الله سمايا صالح قرمو نقضى عملك وحو صالح نقضى أو عمل ونكسر إلهي أقبل النقضى مركي عدة سمينا سأو مؤمن إلهي الرميسية يمان انت آخره talabaadna waxa weeye markuu ilaahay dartii ula jeedo amalkan oo dan kale uusan kala hayn tasaddexaadna waxa weeye markuu amalka uu sameeyo oo nabi maxamed kaga daydo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo sunnadii rasuulka waafaqsan yahay ni yahuudiya u yimid umar markaas wuxuu ku yiri ya amiir almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiyo aayad kitaabkiina ku jirta haday annaga yahuuda nagu soo degi lahayd maalinkay soo degtay ciid baan ka dhigan lahayd اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عمر وحو يلي وانقرنا يا مالين كي سودكتي iyo meeshii ku soo degtay waxay soo degtay buu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo Arafa taagan maalinkuna maalin jumcaha uu yahay ayay nabiga ku soo degtay buu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tabcan wa hajjatul wadaa wa hajki nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ugu dambeeyay umada uu ku sagootiyay waay maalma inaga xiga ilaahi tabaaraka wa taala nabadii caafimaad ha inagu gaarsiiyay الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأحبتي في الله تبارك وتعالى أي نعمة أولا إسكاله shukrigeeda iyo mahadcelinteedana isaga iskale rabbi tabaaraka wa taala allah mar walba inoogu deeqay deeq badan iyo nicmooyin fara badan oo inaan tiro koobi kareynin mar badan ina soo gaarsiiyay fursado badan oo la tiro koobi kareynin inaan siiyay waxaynu ku dhex jirnaa bilihii sharafta lahaa ee karaamada lahaa ee mudnaanta lahaa afartii bilood ee ilaahay tabaaraka wa taala 12 bilood ee sanadka uu mudnaanta ka siiyay in ciddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitaabillah sanadka bilihiisu waa 12 bilood sidaasuna ilaahay qoray maalinkuu samaawaadka iyo dhulalka abuuray ayuu u qaybiyay sida u qaybiyay 12 bilood sanadkii 12 bilood waxa ku jirto alla yiri 4 bilood oo mudnaan khaas leh 4 bilood dhexdooda ku jirna 4 bilood ee mudnaanta lahaa oo rabbigan ina yiri tabaaraka wa taala dhexdooda dulmi ha sameynina diinta toosanna waa taas rabbi yiri tabaaraka wa taala bilahaas xurmada leh ee mudnaanta leh taacada iyo khayrka in lagu dadaalo xumaanta iyo dambiyada iyo macaasida iyo dulmigana laga fogaado maxaa yeelay khayrka la yimaadana waa laaban yahay dambiga la galana sidoo kale waa ka culus yahay xilliyada kale dambiyada la galo marka wax weeye inaad foojignaato oo taxadartay u baahan tahay dadaal la timaado bilahaas isku mid maaha iyagoo afartooduba mudnaan khaas ay leeyihiin haddana iyagaa sii kala mudnaan badan iyagaa sii kala fadli badan bishan fooda inugu soo haysa oo bisha dilxija ah ayaa mudnaan khaas leh waa bisha ay acmaasha khayrku isu tagaan hadday tahay soonkii iyo hadduu yahay salaadii iyo hadday tahay sadaqadii
iyo hadday tahay xajkii iyo hadday tahay cumradii acmaasha khayrka isugu timaada sidaas daradeed baa mudnaan khaasa waxa la siiyay bisha 10 bariye hore ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala mudnaan khaasa siiyay waxa ku tusay inay mudnaan khaasa leeyihiin rabbigeen baa ku dhaartay tabaaraka wa tacaala oo alla wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala wal fajri wa layaalin 10 fajr kan ku dhaashay waaga barigiisaan ku dhaartay buu rabbi yiri iyo habeenna 10 ah mufasiriintu waxay leeyihiin badankood habeenada 10ka ah waa 10ka habeenee bisha dhilhijja ama bisha arafa u horeysa waay allana shay haduu ku dhaarto wuxuu ugu dhaartay buu qabaa bilaash makhluuqaadka kale ugalama soo bixin oo mudnaanta uma siinin nabigeennuna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa si'adii mudnaanta ay 10ka hore leedahay وحديث البخاري صار من حديث عبد الله بن عباس أي النبي وحليه صلى الله عليه وآله وسلم مجران مالمو عمل ونكسر الله سمايا ألا وكتش عليه 10 بري عماش الله سمايا